waxaa loo baahan yahay madaxweyne aqoon leh degan karti leh xagga diintana aad ugu fiican ayay Soomaaliya u baahan tahay oo wadankan ku soo raga shariicada islaamka in lagu xukumo wadanka wuxuu u baahan yahay kow madaxweyne caadil ah oo waa taqaana waxa waaye markii hooska Ilaahay maalinta qiyaamada sana wax ugu muhiimsan horta waa cadaalad weyn marka wadan waxa la ama cadaaladda kor u yeesho ama cadaaladda gadaal u dhigto marka madaxweyne caadil ah loo baahan yahay qodobka labaad waxa isleeyahay madaxweyne waxa loo baahan yahay oo bulshadiisu u dhimrin kara xaaladda bulshadiisa kula socon karo qodobka saddexaad waxa isleeyahay madaxweyne aad dadka kala saareen macna dadka dad kala saarayo bulshadu waxay noqonaysaa inay qiimeynteeda hoos u dhacdo marka taasna waxay keenaysaa in cadaalad darrada hoos imaado qodobka saddexaad qodobka afaraad oo isleeyahay waxa kamid ah in qofka uu ku fakaro dhaqaalaha in meel hoos ka soo bilaabo suumeed sare u gaarsiyo waxa loo baahan yahay si guud madaxweyne Soomaaliyeed wata fikir Soomaaliyeed wata ajenda Soomaaliyeed gadi kara Soomaali waxay u baahan tahay dulqaad badan leh qadarinta ummadda u haayo ummadda Soomaaliyeed aad u far badan tahay ixtiraam guudna u haayo beesha caalamka iyo dadka ma taqaana waxaan la wadaagno dadka Soomaaliyeedna isku wadi kara dulqaadkiisa marka la yiraahdo madaxweyne la dhahana noqon kara oday Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed in badan oo kamid ah dhexdhexaad u noqon kara madaxweyne dalka wax qabanaya dadkiisa iyo diintiisa wax qabanaya daacad yahay rabnaa waxaan u baahanahay madaxweyne daacad ah ka fog qabyaaladda eexda ka fog cadaaladda alla ka cabsiyo ku weyn bulshada u dhaxeyn kara qabiil gooni oo xijineenin daacad u noqon kara ummadda Soomaaliyeed og in Brito oo adduunyada laga tagi doono 2 mitir xisaabna ay sugayso kaaw dalkan ka fikri kara masiirkiisa maxaa dalkan dan u ah dalkan dal burbursan waa wuxuu baahay madaxweyne daacad ah hawl kar ah diinta si fiican u yaqaan qofka markuu diinta yaqaan xaqatan uu ka duwan yahay dadka kale diinta active ku ah kana go'an tahay wax uu qabanay Ilaahay dirtiisa uu qabto fikirkayga madaxweyne cadaalad oo diinta islaamka iyo shariicada islaamka lagu haga oo dastuurka Ilaahay lagu haga oo cadaalad oo qabyaalad lahayn oo eex lahayn oo dadka iyo dalkaba diinta ku hogaamiya waayo Ilaahay markuu abuuray adduun iyo aakhiraba dastuur buu soo dejiyay Ilaahay dastuurka Ilaahay soo dejiyana waa kitaabka Quraanka iyo sunnihii nabiga kaleey salaatu wasalaam anagu horta mid kaasa yaanu dooni lahayn oo aanu jecel lahayn inaan helno haddii la waayo bal wuxuu dooni baa nagu hogaamiye maartay dastuur kale iyo maartay cilmaaniye iyo wuxuu dooni baa nagu hogaamiye madaxweyne daacada oo dadka xaday oo dalka xaday oo dunyada xaday oo been sheegay oo Ilaahay ka cabsada oo og in la xisaabtamayo kaasaanu doonaynaa xaslayaha madaxweyne waxa loo baahan yahay dalka wax ka qaban karo oo maxaa lahaayay oo wadanka wax badan ku soo kordhin kara loo baahan yahay waana rajaynaynaa madaxweyne fiican inaan helno oo rajo ku nool iska nahay anaga dhalinyarada hadaan nahay Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne cadaalad ah dadka u dhaxeeya isla markaasna aan qabyaalad iyo eex midna lahayn way u baahan tahay oo dadka u dhaxeeya cid walbana qancin kara isku daya intuu qancin karo inuu qanciyo والله waxaan islaahay ninka maanta jooga wax kaga roonay inaanu jirin baan aaminsanahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan islaahay 4 sano joogay wax badan ayuu dalka ka qabtay waxna way dhiman yihiin bilaadan qof Ilaahay abuuray oo dhaliil lahayn ma jiro dhaliil uu yeelan kara qofkuna la toosin kara waxaan aaminsanahay nin asaga ka fiican inaan soo mareynin Soomaaliya wax qabadka iyo hamiga maxanaha dadka iyo Soomaaliya nacam halka uu gaarsiiyay in hadii Ilaahay ku roon yahay maanta sharaftii iyo karaamadii Soomaaliya soo celiyaan lahay aad baan u taageersanay kulay anigu waana ku rajoonayaa insha Allah inuu soo noqdo Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne markii la dhaho madaxweyne ku haboon ama aaminsan baahida dadkiisa ay qabaan ka warqabo marka hore markuu ogaado horta qof og baahida ummadiisa ama dadkiisa baahidooda qof og qofkaas markaas waxa la dhigi karaa madaxweyne noocaas ay u baahan tahay wadanka markaan aan u soo laabano madaxweynaha ay u baahan tahay kow waa inuu ahaado horta qof caadil ah marka laga hadlaayo alla ka cabsi horta muhiimadda ugu muhiimsan waa qofka markuu Ilaahay ka cabsado oo yaqaano waxa uu isticmaalayo iyo waxa uu ku dhaqmayo qofka markuu yaqaano qofkaas wax qaban karo marka la haayo marka wadanka waxay u baahan tahay madaxweyne caadil ah madaxweyne diinta wax ka yaqaano madaxweyne markii u turi kara dadkiisa oo ah mid muwaadin ah marka laga hadlaayo muwaadin ama wadani ah kaasoo u baahan tahay ummadda
in isbeddel u keeni karo kaasa waxaa la rabaa madaxweyne inuu noqdo waxaa loo baahan yahay madaxweyne hoggaan wanaagsan oo ummadda u ah dhexdhexaad ummaddana ku yimaada rabitaankeeda waxaan aaminsanahay madaxweynihii dadku soo doortaan iyo madaxweyne ku yimaada 4.5 in farqi weyn u dhaxeeyo madaxweynaha loo baahan yahay ee Soomaaliya gaar ahaan ay u baahan tahay anigu waxaan dhihi lahaa waa madaxweyne ku sifoobay cadaalad daacadna ah misna dhabeeya balamaha uu qaado marka uu musharax yahay iyo in dastuurkii dalka u yeelana ixtiraamo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom